سميرة نور الدين ناصر 26 سنة جير دياسبرا Soomaali asali ah ee satar dhalashada Norway da'yar taliye ah waa tan gilgishay qulubta dhalinyaro fara badan oo u hanqal taagaya in mar uun ay la kulmaan laguna xiro saldhigga iyadu ay ka taliso waa Samiira Nuur Diin Naasir 26 jir ahay waxaan ka imaa dalka Norway soo barbaaray haddana waxaa ka tirsanaa ciidanka booliiska Soomaaliya qoftan halkan taagan waa taqaanaan in badan balse aqoonisteedu waxay kaaga eg tahay inta aad ka aragtay baraha bulshada laguna soo bandhigay xogteeda qayb ka mid ah balse gabadhan waxay degtay sidoo kalena gilgishay qulubta wiilal badan oo Soomaali ah kaliya 24 saac gudahooda daqiiqado kooban oo qura ayaan rabaa inaan kuugu sheego wax kasta oo ku saabsan inantan kuu muuqata ahna hadal heynta saacadihii ugu dambeeyay ee social media balse soo dhawaada tani waa Samiira Nuur Diin Naasir waxay ku dhalatay kuna barbaartay dal ku yaala qaaradda Yurub waana Norway waxay dalka Norway ku nooleed muddo badan waxayna wax ka baratay isla dalkaasi iyadoo dugsi hoose dhexe iyo saraba ku soo qaadatay dalka ay ku dhalatay Norway 2016 ayuu ku biirtay ciidanka yaraanteedana way jecleed ciidanka inay ku biirto iyadoo aad u yar ayayna xiran jirtay dharka ciidanka si ay u noqoto askariyad daacad ah mar uuna ku taamaysay jecleedna inay ka shaqo bilowdo dalkeeda masaafo fog bay u soo jartay si ay halkan kaga shaqeyso shacabkeedana u garab istaagto iyadoo heli karta kuna nooleed ammaan iyo nabadgelyo Samiira hadda waa taliyaha saldhigga booliiska degmada Shibis balse gabadhan Samiira Nuur Diin Naasir lagu magacaabo waxay soo jiidatay indhaha wiilal badan oo Soomaali ah kuwaas oo aad ula dhacay gabadhan diyaasbarada ah 24 saac wax ka badan ayaana magaceeda lagu lafaguray baraha bulshada wiilasha gabadhan ka daba dhacay ayaana dalbanayay intooda ugu badan inay la kulmaan Samiira halka kuwa kalena ay doonayeen in lagu xiro goobta iyadu ay ka taliso si ay Samiira u arkaan Samiira Nuur Diin Naasir 26 sano jir diyaasbara ah Soomaali asali ah ee satar dhalashada Norway da'yar taliye ah waana gabadhan aad aragtaan waxa ayna soo jiidatay qulubta dhalinyaro fara badan oo Soomaali ah kuwaas oo ku sugan dalka gudihiisa iyo dibadiisa waad maasan tahay la wadaag muuqaalkan asxaabtaada naguna soo bir